waayahay dhanka qaybsiga khayraadka iyo marka shidaalka la soo saara haddii aan u tilaabno sidee loo qaybsadaa ama loo qaybsanayaa dakhliga laga helo ceelkan shidaal maxayse tahay saamiga Soomaaliya ku soo aadaya marka loo eego shirkadda shaqadan qabanaysa Silvero waa iska dadku aragtay speculation waxa socday warar badan oo iska complicate oo dadku isa fahmeen marka anaka biireedaan leenahay ilaa 4 sano ilaa 5 sano ugu badnaan in hortay waqtiga cost recovery uu ku egyahay marka waxaan u kala qaadanaynaa waxa waaye waa 9 iyo 10 iyo 5 oo royalty-ga ah iyo 50% faa'iidada ah intaas waxa ka daran annaka waxaan ku sii leenahay ayaka 30% corporate tax waxay faa'iidaan marka isagu 9 qaato wixii haray inta uu faa'iido 30% taxi canshuura laga qaada 5% royal 4% laga qaada marka adiga waqtigaas kadib markuu dhamaado oo la gaaro waqtigaas management committee-ga fariisanaya hadii wali uu xaleen waa ceiling waaye wixii ka dambeeya waxa loo kala qaybsanaya waa 85 iyo 15 dadka 30% corporate dawladda Soomaaliya 5% dawladda Soomaaliya qaadana shacabka Soomaaliya iskale 85% marka adiga nin wax risk qaatay oo xoolo galiyay oo wax galiyay meesha waa iska standard way adduunka qaar baa dunida waxay bixiyaan maxaan ku yiraahdaa ii sheeg Indonesia fiiri waxa fiirisa wadamo badan gidigood 100% ay bixiyaan cost recovery waxay rabaan inay iska dedejiyaan si loogu soo saaro shidaal waxay leeyihiin maya hadhow markii shidaalka la soo saaro qaybsiga la gaaro deyntii gashay wuxuu rabaa inuu iskaga dhameeyo 2 sano wuxuu leeyahay okay royalties 100% qaado iga dhamow aniga aad u kala bax markaas kadib wax la qaybsana marka saabka anaga markii waxaan nahay New Frontier wadan cusub aan nahay wadankan Turkiguna waa wadan walaalkeena runta riski noocaas wax noo qaadan kara oo investment magnitude tiradaas leh gelin kara waa yarya hadda waad aragtaa markii la Turkiga waa ku dhiiradeen Turkiga waa soo way dhiiraday markii buu gaday yani wuxuu ka go'an dalkan Soomaaliya khayraadkiisa inuu soo saaro waayahay dabcan annakana xukuumadeedana wax liyaalo wixii riskiga waa qaadatay iyadu خير الله سيو دولة حسن شيخ يعني all risks وكلفت جريس وكقاد محنا ما أنت ضد حجين كرهيش إسكال لا قالوا ضد حجين كرا منطقة نستوش الناس اللي overside solid ضد الشرع بترول solid مركوا